dalkaya iskale. Especially successful these days, and we can see that is explosion. It is happening in Somalia because they don't want the government to be there. They wanted only just the terrorists to take the places and just to fight for the world. But we don't want it that because everywhere the children, women, enough is enough. We fed up from these things. Please, all the humanitarian and other people to support African, Somalian especially. They have got a tragedy. On Saturday, 14th of October, there is a very big explosion in the capital of Somalia, Mogadishu. A lot of people killing there, more than maybe 600, but we don't we estimated 500. At least there are more than that. And other 600, maybe 500 injuries. They are taken from the other neighbors countries, and we are really appreciative for the Turkish government who gave us support really to take all injuries to their hospitals. And also we are supporting all who supported us, the UK government, United States of America, and others who coming just to give us a hand. We are welcoming them. So I wanted to say that is please, for the terrorists, enough is enough. We don't want it. We need to live a peacefully in Somalia and other countries as well in the world. So that is why this is my message to pass to all of the world. Somalia hanarato, Somalia hanarato, Somalia hanarato, Somalia hamidolo, Somalia hamidolo, Somalia hamidolo, Somalia hazra'u, Somalia hazra'u, Somalia hazra'u, Somalia hazra'u. أرجع صدق هذا عضو، 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 فوكس هذا عضو، فوكس هذا عضو، فوكس هذا عضو. عندي واحد ليس هذا عضو. Somali qofkii dila ha dhaco, qofka Soomaali dila ha dhaco. Somali unity, Somali hamidowdo, Somali hamidowdo, Somali hamidowdo, Somali hazracdo, Somali hazracdo, Somali hazracdo, Somali hajirto, Somali hajirto, Somali hajirto, Somali hanarato, Somali hanarato, Somali hanarato. Walaalayaal waxaan runtii aan u taaganahay maanta halkan inaanu ka jawaabno qarixii ka dhacay 14 bishan magaalada Muqdisho ee dadka gaarayo ilaa 300 iyo ka badan oo qofood ay ku dhinteen 500 iyo ka badan ay ku dhaawacmeen. Halkan waxaan u taaganahay maanta barnaamijkooda inaan shucuurteena muujino ay isugu soo baxeen dadka halkan taagan oo dhan oo isugu jiro Soomaali iyo ajnabi intaba runtii waxay u taagan yihiin inay support gareeyaan ama shucuurtooda la qaybsadaan dadka halkaas dhibaatada ku soo gaartay iyo dadka dhaawaca ee isbitaalada ku jira. waxaanu leenahay waxaanu ka soo horjeednaa dilka ka dhacayo magaalada Muqdisho. waxaanu ka soo horjeednaa cid kasta oo dhibaato ku hayso ummadda Soomaaliyeed oo dhiigooda baabi'inayso oo dhiigooda daadinaysa ayaanu ka soo horjeednaa. waxaanu ka soo horjeednaa cid kasta oo cadow ku ah nabadda iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed. waanu ka soo horjeednaa. waxaanu leenahay cid kasta oo ka soo horjeedana ha dhacdo. cid kasta oo ummadda Soomaaliyeed nolosheeda iyo dawladnimadeeda ka soo horjeeda ha dhacdo. ummadda Soomaaliyeed ha midowdo. ummadda Soomaaliyeed way israacaysaa, way midoodaysaa. meel kasta ay joogtana way ka soo horjeedsatay dilka ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya. waxaan maanta halkaan isugu soo baxnay oon aad iyo aad ugu xunnahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho 14 Oktoobar. waxaan ka hornaa arrimihii ka dhacay. waxaan leenahay inta dhimata Allah u naxariisto, dhaawacana Allah bogsiiyo. waxaan maanta si xoog looga soo horjeednaa urus oo ummadda Soomaaliyeed dhiigooda baqaysatay, oo ummadda Soomaaliyeed ragaadisay, oo ummadda Soomaaliyeed baabi'isay, oo ummadda Soomaaliyeed waxaan 14 ilaa hadda xirannahay dhiig waa u jeedin wax madaxeena saaran. aad iyo aadaan ugu xunnahay ummadda Soomaaliyeed maanta annaga dhiigooda u hurayna, laakiin dhaqaalaheena waa u huraynaa, waa aruurinaynaa, waana ka soo horjeednaa. waxaan leenahay ugu soo dhaco, waxaan leenahay ugu soo dhaco ummadda Soomaaliyeed ha guulaysato, dowladnimada Soomaaliyeed ha guulaysato. waxaan leeyahay Soomaaliyeed maanta arag masiibada qarankeena, arag maantida la dooxaayo, arag hooyada murugaysan, arag Muqdisho waxa yaalla aragaan leenahay. maalkii xoolaha ku bacay miyaa janno lagu mutaystaa oo Nabi Maxamed niciisii lagu noqdaa. maaligow allahayow
adaa mawjadaha fura adaa mugdiga iyo caddada adaa maalin iyo habeen dhigay masiibada maanta taal macbuudow naga dulqaad maansada dulucdeeda waa muruqoo isu geeya nacabkii noo midooba meel qura ka soo jeesta mooradooda ugu duula ugus qaranka ku xureeya waa u dhoofaynaa dhiiggeenna u bixinaynaa waxaan diyaar u nahay maanta intaan joogno inaan askar noqonno inaan kulligaan askari noqonno inaan militari noqonno inaan baabi'inno insha allah waa gebagabadii waa markii ugu dambaysay hooyo dambe oo soomaaliyeed uma dulqaadanayna waddada ku hooyayso ugus hooyaa u soo duusheen carruur baa u soo duusheen dawlad ma dilowsiin dawlad ma arkinina waxaa u diyaar garowdeen meel kasta oo hooyo soomaaliyeed ku dhiban tahay iyo carruuraha soomaaliyeed iskoolayda soomaaliyeed kuwa jaamacadaha dhigto waa qaran dumin waa baabi'in waa soomaali bi'in soomaali baabi'inteeda u soo baxdeen laakiin ma idinka yeelayno mana asuuqi doontiin maatada iyo hooyada iyo carruurta wixiina waa carruura dil waa maata doox waa hooyo dil ma aha wax kale dawladna ma arkaysiin mana u duuli kartiine hooyooyinkii ilmaha yareerkaa iyo ciroolaha aad jiidaysiin ka joojiya calidheere waa ku daba taagana waa ku soo qabanaya tuug maanta halkan waxaan isku nimid jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Ingiriiska meel kasto iyo dadka ajaanibta dhammaantooda yani ayay inoo yimideen meesha waxaan rabnaa baroor diiqaan maaragtay dadkii oo ku dhinteen qarxii oo afar iyo tobankii bisha markay ahayd maalinta sabtida runtii waa wax xanuun ah oo naftin leh waa qadax oo ugu weyn runtii oo dadkaas meesha lagu laayeen weli ilaa hadda waxaa warad noo soo gaareen yani in dad qaarkooda ay ka maqan yihiin meesha oona la ogeynin meesha ay ku sugan yihiin hadday dhinteen iyo in kale marka run ahaantii dadka Soomaalida meel kasta ha joogaan waxaa loo baahan yahay inay indhahooda furaan inay midowdaan inay dawladooda taageeraan gaar ahaan waxaan la hadlayaa yani maamulka gobollada dhammaantooda maaragtay inay gacan siiyaan dawladda si maaragtay lagu horumariyo maamulka sidii oo dawladdii maaragtay ay ahayd dawladdii hore oo dhaqan arag Soomaaliya inaan ku laabano sideena hore in la taageero maaragtay militariga in la taageero dawladda si fiican waxaan u baahan annaga maadaama aan joogno furbada UK diyaaraan kunahay har iyo haween inaan taageerno sidaad ogtihiinba dadka ku nool waddankan Ingiriiska aad iyo aad ayay siyaasadda la socdaan gaar ahaan yani arrimaha Soomaaliya marka run ahaantii Soomaaliya hurdada ha laga tooso waxaa loo baahan inaan midoobno hal gacan aan noqono waad ujeediin yani dadkii carruurtii iyo dadkii turbada ka baxeen diyaasbara xagga tegeen oo qaraxaas ay ku dhinteen waad la socoteen yani dadka ardaydii meesha ku dhammaadeen madaxdii meesha ku dhammaadeen marka inaf waaye iyo odayaasheenna dhammaan iyo siyaasiyiinta dhammaantooda ma aragtay ina miidiyaha naftirkooda waa inaan yani iyagan arkino gacan weyn ay naga siinaya arrimahan mar kastona waa taagan yihiin hal iyo haween marka waxaan u baahanahay keli Soomaaliyey hurdada ha laga tooso Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacaan Soomaaliya ha midoobaan وعليكم السلام ودقاقينا وسعنينا وايتول waxaan tegaynaa down street ka Madeira meeshaasaan macnaha istaagayna xoolaha waajibkeena ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah walaalayaal sida aad u jeedaan annagoo oo isku duuban waxaan isugu nimid halkan inaan ka bannaan baxno xasuuqii arxandarrada ahaa ee loo geystay dad abriyaa ah magaalada Muqdisho 14 bishan Oktoobar aynu ku jirno sanadkan No
Mogadishu. In Somalia. No more deadly attacks. No more deadly attacks. In Mogadishu. In Somalia. Today we are protesting against the mass killing of people in the Somali capital on the 14th of October this year. Terrorists have killed 500 people in one single attack, and they have injured 500 others. Hundreds are missing. Hundreds of people are missing. Hospitals have been filled with injured people. Somalia alone cannot fight the war on terror. We need British skills and resources to combat urban terrorism. Somalia alone cannot. No more killing of people. No more killing of people. Make peace, not war. No peace, not war. There is no life in violence. No more violent fighting. There is no life in violence. Make peace, not war. No terrorism. Mogadishu. In Somalia. No more death. No more death. In Somalia. No more death. In Somalia. We want a peace. We want a peace. We want a peace. No more attacks. No more attacks. In Mogadishu. In Mogadishu. In Somalia. No more deadly attacks. No more deadly attacks. In Somalia. In Mogadishu. In Mogadishu. In Somalia. No more deadly attacks. No more deadly attacks. In Mogadishu. In Somalia. In Mogadishu. In Somalia. No more deadly attacks. We condemn deadly attacks. We condemn deadly attacks in Mogadishu, in Somalia. We condemn deadly attacks, frequent deadly attacks in Mogadishu. Humanity against terrorism. Humanity against terrorism. Humanity against terrorism. No more deadly attacks. No more deadly attacks. In Mogadishu. In Mogadishu. In Somalia. In Somalia. No more deadly attacks. No more deadly attacks. In Mogadishu. In Mogadishu. In Somalia. We thank him and we thank it to those who are trying to help the Somali people. We're the only African people who have been suffering the deadly attacks since 2000, and I can say since 2011. We've lost more than 10,000 people. That's combined all the European attacks, America, and many parts of the world. Somali people have وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي